kulanti wacan wanaagsan dadkana daawanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Somali American TV oo aan si toos ah idinka soo gudbinayno stuudiyadeena magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka ku soo dhawaada daawadayaal barnaamijkan gaarka oo aanu kaga hadlayno dhacdadii shalay ka dhacday xarunta baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya taasi oo markaasi qodob dastuurka laga saarayay barnaamijku kuma saabsana in qodobkaasi dastuurka laga saarayay oo ahaa mid xaq ama mid ansaxa hase waxaanu eegi doonaa fadqalalooyin ka dhacay baarlamaanka gudihiisa iyo saameynta ay ku yeesheen xildhibaanadu sidii horeba daawadayaal aan u sheegay waxaa laga doodayay dood ku saabsan amaba ansixin in loo codeeyo in qodob laga saaro dastuurka Soomaaliya dastuurku waxa uu dhigayay in qof ajnabi ama shisheeye aanu hawlaha sida bangiyada oo kale dhexe aanu qaban karin iyadoo la helayo qof Soomaaliya oo markaasi u qalma oo jagadaasi ama xilkaasi qaadi kara runtii markii la soo bandhigay waxay u ekeed saaxadu mid dadka badankiisu ay ku raacsanaayeen kuna waafaqsanaayeen guddoonka in qodobkaasi gacanta loo taago oo loo codeeyo ilaa iyo 150 xildhibaan ayaa gacanta kor u taagay oo ogolaaday iyadoo qaar kalena ay diideen markiiba waxa dhacay buuq ka dhacay baarlamaanka dhexdiisa oo inkastoo aan gacan la isla tagin haddana aanay waxba dhaamin gacan in la isu qaado dhawaaq dheer iyo miisas la garaacay iyo codad kala duwan oo isku mar qaacada amaba saaxada markaasi ka baxayay ayaa dadku dhamaantood ay ka dheehanayeen shaashadaha telefishinada marka ugu horeysa intaan guda galin bal saameynta xildhibaanada aan idin daawadsiiyo baarlamaanka iyo markii qodobkaasi uu gudoomiyuhu soo jeediyay sida ay noqotay xaruntii فريستا حلوانات فريستان حال ودانا دال ديار کرو فريستا حال ودانا دا اب كلام فشن ايمان حق تك حال ودانا دا فريستا حال ودانا ديار کرو حال كان كدغا halkaan ha laga dego hala dego ha loo dego hoos xildhibaan kasta waa inuu booskiisii ku noqdaa fadlan waan idin siinaa cod qof walba inuu fadhiistaan rabnaa abdhowryaasha hala fadhiisto xildhibaanad lagu magacaabo Muna Khaliif Abu oo Muna Kay loo yaqaano ayaa kamid ahayd dadkii ku doodayay in qodobkaasi aanay ansax ahayn in laga saaro dastuurka Soomaalida waxaana tuhunku ahaa in nin shisheeye ah amaba nin cadaan ah loo dhiibi doono bangiga dhexe inkastoo weli aanay cadayn oo aan la oran hebel ayaa loo dhiibayaa si toos ah haddana waxaa jirtay markaasi ku tirkuteen iyo warar la isla dhexmariyay oo tilmaamayay in nin cadaan oo Ingiriis ah loo dhiibi doono bangiga taasina ay tahay sababta qodobkaasi looga saarayo dastuurka haddaba gabadhaasi oo kamid ahayd koox xildhibaan ah oo diiday ayaa waxay is afdhaafeen xildhibaanad kale oo lagu magacaabo Luul Cabdi Aadan oo Luulay ku magac dheer Munakay iyo Luulay oo laba xildhibaan ah ayaa markii is afdhaafeen dabeetana waxa la soo baxay dibadda waxa banaanka ku sugayay baabuur gabadha ama xildhibaanka lagu magacaabo Munakay ay walaasheed waday dabeetana walaasheed ayaa soo baxday oo lagu magacaabo Maryan Khaliif Abu waxaanay u gacan qaaday Luul Cabdi Aadan oo ahayd gabadhii xildhibaanada ahayd ee ay Muna soo afdhaafeen iyadoo walaasheed u heelanaysa ayay dabeetana waxay gaarsiisay nabarro culus oo gabadhii Luulay ama xildhibaanka ahayd ay markaasi dacwad ku soo oogtay oo ay booliiska gaarsiisay aan idin daawadsiiyo ama daawadayaal waxa muuqaalkan aad ka arkaysaan sawirradii Luulay ama Luul Cabdi Aadan oo gabadha xildhibaanta la dilay ah oo nabarro ay gaadheen wararka qaar baa sheegay in mindi loo adeegsaday hase yeeshee dhakhtarku waxa uu cadeeyay inaanay mindi ahayn sida muuqaalka baad ka aragtaan ha yeeshee wajigeedii loo geystay
dhaawac aad u weyn booliisku markiiba tallaabo ay qaadeen waxaana soo xidheen maryan khaliif abuu oo ay saldhigga booliiska ku xidheen intaasi kadib ayaa maryan waxaa soo damiinatay oo damaanad ku soo deysay munakey oo ah xildhibaanada walaasheed markii ay soo deysay sida dastuurka ama shuruucda ay dhigayso waxaa la ogol yahay qofka eedeysanaha ah in la damiinan karo hase yeeshee qofka la damiintay aanu dalka ka bixi karin gudaha iyo dibadda gobolkaasba gabadhii walaasheed ahayd ayay soo damiinatay dabeetana waxaa isku dayday in iyada iyo walaasheedba ay u safraan baay amaba gobolka baay gaar ahaan magaalada baydhabo airportka markii ay marayeen ayaa boolisku ay ka war heleen dabeetana waxa ay mar kale gacanta ku dhigeen oo ay soo qabteen maryan khaliif oo ay ku eedeeyeen in ay baxsanaysay munakey oo xildhibaanada walaasheeda oo markaasi ka hadlaysa dhacdadu sida ay u dhacday iyana bal daawasho wanaagsan All I ever wanted to do is fight for my country. All I ever wanted to do is help my people. All I ever wanted to do. In Tasboa, I've given up my comfortable life and Uimad to do what I can. Like, you really can't do anything. Dadka hadday ogaan powerkooda oo dadka israac and we forget about qabiil. How long are we going to be living in this situation? I have chose this government myself, thinking there's going to be a change. But today, I fear for myself. I fear for my life. Not from anything else, from my own very government. wahagaag daawadayaal xildhibaanadaasi munakey ee walaasheed la xidhay ayaa arintii waxa ay kiiskii ka dhigtay in ay kiisku in uu ka socdo murankii baarlamaanka ee ku saabsanaa in xeer ama qodob ka mid ah dastuurka laga saaro oo iyadu ay diiday gabadha kale xildhibaankuna ay ogolaatay iyadoo sida ay sheegtay xildhibaanadaasi luul ay la hadashay prime ministerka amaba ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo ay u sheegtay in ay iyadu u dagaalamaysay xukuumadda uu ra-iisul wasaaraha ka yahay dabeetana waxay leedahay ra-iisul wasaaraha ayaa ciidanka booliiska u soo diray walaashay oo gudaha dhigay arrintaasi la siyaasadeeyey annagoo aan ku dabaqayn oo aan odhanaynin ra-iisul wasaare ayaa ka dambeeyey haddana waxaa inta badan baraha bulshada maanta aada loo soo dhigayay oo ku soo qulqulayay gabadhaasi xildhibaanada ah ee la dilay ama la garaacay nabaradii wejigeeda iyadoo laga cabanayo oo laleeyahay gabadh xildhibaan ah ayaa markaasi nabaro culus oo dhaawac ah loo geystay dadka haddaba social mediaha isticmaalayay ama baraha bulshada soo dhigayay ayaa dhammaantoodba waxa ay ka socdeen ama ay ka shaqaynayeen ama ay ka howlgalaanba xafiiska ra-iisul wasaare xasan cali khayre taasi ayaa tuhunka keentay in meesha laga soo abaabulaya arrinkan ay tahay xafiiska ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre booliiska ayaa haddaba waxa ay ku tilmaameen dhacdadan in ay ahayd mid gabadha maryan khaliif oo nabarada geysatay ama dhaawaca u geysatay luuley in airportka laga soo qabtay iyadoo damaanadii ka baxsanaysa dad social mediaha fara badan oo soomaaliyeedna ay arintii siyaasadeynayaan oo ay ka dhigayaan arin ay xukuumaddu ka dambeysay in markaasi la arbusho labadaasi gabdhood ee walaalaha ee midna ay xildhibaan ka tahay midda kalena ay haatan saldhigga booliska ku xidhan tahay ciidanka booliska ayaa sheegay in ay tallaabo ka qaadi doonaan dadkii lagu helo dembiye ku saabsan haddiiba warar aan la hubin oo dhinaca nabadgelyada khalkhal gelin kara in markaasi ay soo dhigaan baraha bulshada bal ciidanka booliska ama taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed iyana aan wada daawan oo ay taariikhdu ahayd 4 bishii koowaad 19 abaaro 2:30 daqiiqo waxaa ciidanka booliska u yimid dhibane xildhibaan luul cabdi aadan oo ka dacwoonaysa eedaysane maryan khaliif abuu xildhibaanada
waxaa la siiyey rifeerto kadibna waxaa raacay ciidan waxayna u geysay ciidankii qofkii ay ka dacwoonaysay oo eedaysanaaha aha waa la soo qabtay markii la soo qabtay saldhigga ayaa lagu soo xiray saldhigga markii lagu soo xiray iyaduna rifeertadii bay qaadatay rifeertadii ay qaadatay way soo caddaysay dhakhtarka ayaa soo caddeeyey wataas waxaa lagu soo caddeeyey in ay tahay in dhaawac culus inuu soo gaaray xildhibaanadda sida aad aragteen oo websaydyada aad ka aragteen dhib culus ayaa ku yaalla sida aad sawirradaba uga jeedaan dhibkaas culusna waxaa geystay oo qirsanayd oo qiraal ahayd eedaysane maryan khaliif abuu markii la xiray oo saldhigga lagu xiray damaanad ayaa lagu sii daayey damaanaddii mar alaala markii lagu sii daayey ciidanka booliisku waxay heleen information ah in ay eedaysanihii uu ka baxayo aeroboorka oo ay fakanayso waa la soo qabtay ciidanka booliiska ayaa soo qabtay waxay ku guulaysteen inay ku soo celiyaan saldhiggii arrintaas waa sharci in damaanad qofka lagu sii daayo waa sharci weeye waa la ogol yahay qofka markii la damiinto oo damaanadda sharciyan lagu sii daayo qofku ma dhaafi karo eriyadaas loo ogol yahay oo lagu damiintay oo uu dhibku ka dhacay ma uu ka bixi karo gobol kale ma aadi karo meel kale ma aadi karo sida sharcigu uu yahay weeye وهاك داود يال سكست واحد نقطة يضو أرنكاسي أنصحنته شلي عدكي أي هلان بقول يستديو كونتون حلبان سيدي هربان كل شيء أي واحد نقولنا يا بيد مركزي لما المريو أول أقولاده أول سوون صحيحة مدحوينه محمد عبد الله فرماجو قلتون كأيو ربش كعنك هذا كدعي برلمان كبنان كيسة إيو نعضاً إمك أين كل شيء كأنني يود حيسي labada xildhibaan ee Muna Khaliif Abuu iyo Luul Cabdi Aadan ayaa daawadayaal waxa ay noqonayaan dagaalkii xawleeyda ee xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo saameyn weyn ku yeeshay siyaasadda marba iyo mooshinada ka jira baarlamaanka gudihiisa waxaana arintani ay keeni karaysaa in laba dhinac loo kala safto oo qolo ay u heeliso iyadoo arrinkii la siyaasadeynayo waxaana dhici karta in mararka qaarkood qof waliba tuhun aan sax ahayn in uu la yimaado oo uu ku meel marsado in uu ku dagaal galo oo la garab istaago وهاك داوديال دعوة سنين تاسي أيام كسو كبيرة تانية كلنا كنا دم برنامج كانوا كلا داوديال انتين دوبو كل مدة وعلى حلال ودمانتين بدك تجسيدا أيوه نبت قليو